fadlan walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaa laga codsanayaa inay caawiyaan qoys danyara isla markaana ah barakacayaal ka soo qaxay magaalada Muqdisho iyadoo odaygan idin muuqda ay waayeelka uu hadda mas'uul ka yahay qoyskan isagoo sheegay in wiil uu dhalay oo halkan u soo qaxiyay reerkiisa uu halkan ku geeriyooday isla markaana uusan waxba haysan wuxuuna ka codsanayaa bulshooyinka muslimka inay soo kaalmeeyaan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ina faraya inaynu isu gargaaro iyadoo dadka muslimiinta ay waajib ku tahay in qof kasta oo islaam ah loo gargaaro iyadoo dadka barakacayaasha ay ku dhaqan magaalada Laascaanoodna ay ka sii daran yihiin xaaladda ay ku jiraan iyadoo aysan jirin cid caawisa Soomaaliyeed way ku codsadaan intii aqoontan iyo aabood dhinti wiilna halkaas la ii joogi oo masaakiin meesha ku har noolal baa ku raba Soomaalida dadweynaha waa garadka intaas ba ku rabna noolal naagtii oo wiilkay qabeen hatta dhashi umul waaye gaadi baa u dhimanaysa aniga way arkooysin ina gacanteen waa ku mijir nin masaakiin aan banahay aruurtan waa arkooysin ilaahay dartiis loo kaalmeeyo islaamka muslimka ina naawiyo aqoontan oo meesha joogto ina dhibaato gaajo aabooda dhinti aniga waxba u haysan hooyadooda hadda waa umula ku jirta ina masaakiintan la nooleeyo aqoontan la nooleeyo Soomaali waa garad intaas baa u baahanahay ina ilaahay dartiis nooga kaalmeeyo ilaahay idinkiin waa idin duceynaya haddaba cidii tabarucaad u fidinaysa qoyskan danyarta ee barakacayaasha waxaa laga codsanayaa inay igu soo hagaajiyaan akoonka dahabshiil ama ay kala soo xiriiraan telefoon nambarka halkan ku qoran